Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaam dhamaan walaalay Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan. Waa mar kale walaashin Xafsa Shire kusoo dhawaada channelkayga hooyada maanta. Maxaa la ayaantaan wax badan ay ka maqnaay oo waa iska mashquulay waana ka caajisay YouTube-ka laakiin insha Allah hadda waxaan rabaa inaad dib ugu soo laabto. Waxaan soo dhaweynayaa dhamaan walaalaha gadaal nooga soo biiray. Waxaan u mahadcelinayaa walaalihii hore ila joogay inta fiidiyodeeda mar walba daawato, share gareyso, like saarto. haddana waxaa yani idinka codsanayaa inaad like saartiin videoga asxaabtiin usii share gareysiin. maanta waxaa ka hadli rabaa hargabka caruurta ku dhaco yaryarka ah. ilmaha yaryarka inta badan waxaa ku dhaco hargab. hargabkana waxa waaye hadda Soomaaliya aad ugu soo laabtaabo. ibnaadanka yani jirkooda maxaa la lahaa difaac ma yaraado ma ogi, hawada ma sii wasaqooda ma ogi. hargabka sidii waagi hore u ahaan jiray wuu ka duwan yahay. hadda wax yar kadib caruurta hargab baa iskaga dhacay. hal cunuga dugsiga ka keenaya ama iskuulka ka keenaya kuwii kale dhan wada qaadsiinaya. marka hargab caruurta markuu kaaga dhaco siiba kuwa aadka u yaryar sida ula tacaali lahayd ayaan ka hadlaynaa iyo qaabka u caawin lahayd. inta badan hargabka horta wax daawo ah ma lahan oo wax iska imaado seasonal oo markuu caruurta ku dhacaan cabaar markuu hayan iska daay iskiis iskaga baxo. laakiin waxaa jira waxyaabo yar oo aad ku caawin kartid. cunugaaga hadduu 3 bilood ka yar yahay wax daawo ha u dhaweynin ilaa dhakhtar aad la tashatid maahane. haddii cunugaa qandho zaa'id ku aragtid cabur badan ku aragtid inaad dhakhtarka aad geysid. haddii 3 bilood uu ka weyn yahane maxaa la dhahay inaad qandho jabi siin kartid. geedka sanka oo caruurta looga saaro waa idinla wadaagi doonaa videoga. aa ku dhex arki doontiin oo diifka looga saaro caruurta inaa isticmaashiin. biyo cusbo leh intaa saliinga lagu shubo sanka hal dhinac inta looga shubo dhinaca kale laga soo saaro si cunuga oo diifka badan oo uga soo saaro oo naqaska ugu furmo because sanka cunuga meeshu ka neefsanayo waaye hawo soo u helo. cunuga marka qandho badan ay qandhada in laga jabiyo, dhar jilicsan loo geliyo, kuleelka badan laga ilaaliyo. caburka inta badan waxaa sii adkeeyo haddii qabow zaa'id uu cunuga arko ama kuleel zaa'id uu arko. marka temperature-ka in dhexdhexaad looga dhigo oo cunuga meel oo caadi oo hawo fiican oo ku qaadan karo uu helo. maxaa la dhahayay ilmaha haddii ay ka weyn yihiin 1 sanane hargab markuu ku dhaco waxaa ku caawin kartaa inaad siisid maraq, inaad siisid biyo badan. inta badan ilmaha biyo badan wuxuu ka caawiyaa fluid-ka badan inuu jirkooda oo shaqo fiican uu sameeyo. teeda kale oo dehydration uu ku dhicin oo yacni haraad badan uusan ku dhicin. maxaa la dhahaa fuuq bax uusan ku dhicin. cunuga qandhada xataa dehydration ay ku ridaa. marka qandhada in laga jabiyo biyo badan siisid, maraq aad siisid, malab, xabad soodo, liin dhanaan, waxyaabaha dabiiciga ah ku caawisid. inta badan daawo ma fiicno. hooyooyinka Soomaaliyeed inta badan antibiotic ay siiyaan. hargabna antibiotic laguma daaweeyo. cunug hargab ka haayo oo qunfacayo antibiotic ha iska siinin. maxaa la dhahay dhakhtar inaad u tagtid oo cunugaaga wax kale laga helay oo antibiotic loo soo qoro maahane adi inta farmashiga tagtid antibiotic ha soo qaadanin. daawada qunfaca sidoo kaleeto ilmaha uma fiicno inta laga badiyo oo mar walba cunuga qox oo dhahawa inaad u soo qaadid daawo wax laga fiican yahay waaye. inta daawo ka maarmi kartid inaad ka maarantid oo aad ku dadaashid inaad waxyaabaha dabiiciga aad siisid oo maraq siisid oo biyo badan aad siisid, xabad soodo iyo liin dhanaan yar iyo malab yar inaad iskugu dartid subaxii hore inta subax inaad iskugu garaacdo aad siisid. ilmaha wax badan ayay ka taraysaa ay ka caawinaysaa. maraqeena caadiga maraqa caloosha laga kariyo ama hilib ariga laga kariyo inta maxaa la dhahay aa u karkarisa waxoogaa yar filfil sinjibiil yar aa ugu dartid waxaas toon ugu dartid. toontana aad ay ugu fiican tahay hargabka. aa ugu dartid aa u miirtid liin yar intaa ugu dartid ilmaha siin kartaa. teeda kale ilmaha waxa waa la jeclaysiiyaa maraqa camal ilmaha inta badan ma jeclo laakiin adaa u macayn kartid. waxaa leedahay maraqa macaan waaye adiga inaa cabtid dhadhami hadda qaando ku siisid marka koowaad haduusa aqoon cunuga bakeeriga intaa qandac kasoo dhigta qaando kusoo qaadid dhadhami dheh. marka ilmaha inta badan way ka helayaan haddii adiga u xayeysiisid oo jeclaysiisid. laakiin marka koow haddii lagu arko adina maraq nacaysid ama oo caynaysid ilmaha ma jeclaanayaan. cunuga hooyada cuntada ida jeclaysiis ayadaa necbaysiin karto. inkastoo ilmaha qaar ay iskaga dhashteenbo ash qaarkood laakiin inta badan wixii lagu tababaro way qaataan. marka cunuga marka waxaa la dhahaa ilmaha ha iska siin. teeda kale aspirin kaniiniga aspirinka xanuun baabi'i aspirinka la ilmaha uma fiicno wuxuu ku ridaa cudur halis ah. marka waxaa inta badan aa isticmaashaa daawo ilmaha loogu talagalay paracetamolka ama ibuprofenka iyo
markaa isticmaalaysin inaad dhakhtarka la tashatid qiyaasta aad siin kartid cunug intuu jiro ayaa ku cabiraysaa inaadan ka badinin oo overdosage oo cunuga uusan ku dhicin maxaa la dhahay cunug hadduu qunfacayo maxaa la dhahay daawo qunfaca lacala haddaa ka maari weyso inaad isticmaashid inaadan ka badinin oo dhakhtarka aad la tashatid oo mar walbana aadan ku celcelinin cunuga inta badan difaaciisa inaad ku dadaashid oo liima oranjiga iyo liin dhanaanta iyo waxyaaba vitamin c-giis kor usoo qaadaya aad siisid aad ku dadaashid muhiim jiddan waaye marka inta badan daawo dhakhtar kuu qorin iska ilaali farmashi inaad tagto daawo kasoo qaadanayso iska ilaali xanuun baabiya haddee tahay okay waaye xanuun baabiyaha naftirkiisa in laga badiyo ma fiicno midka caruurta loogu talagalay inaad isticmaashid cunuga qandhada ka jabisid hadduu caburan yahay caburka sanka ka nadiifisid intaasaa muhiim waxaan rajeynayaa qof walba cunugka xanuunsan yahay inuu ilaahay u caafiyo ilmaha yaryarka oo sanadka ka yar ama sanadka ilaa 2 sano oo naaska nuugayana naaska hooyada inay u badiso ee siiso ayada ku dadaasho inay wax badan cabto cunuga naas fiican uu helo because naaska ilmaha wax badan oo uga difaaca especially 6 bilood ugu horeyso horta cunuga aadka loo nuujiyo inta badan hergab iyo waxaas maba ku dhacaanbo naas nuujinta saxda ah hooyada markay ilmaheeda u sameyso sanadka ugu horeeya difaaciisa wuu fiican yahay oo hergabka iyo waxaas iyo uu ka sakhirmaa hadduu ku dhaca xataa zaa'id ma u rafaadinayo cunuga nadaafadiisa lagu dadaalo gacmaha laga dhaqo mar walba meel nadiif la dhigo waxaasoo dhan waa ka ilaalin kartaa ilmaha markay hergab qabaan ee guriga soo galaan hadduu cunug aad u yar kuu joogo inaad dhahdo hooyo ha taabani ama maca ha siinin ka fogaaw aad dhahdid aa kula dadaali kartaa qof walba oo caruurka ka xanuunsantaha allah u caafiyo intaan awlaadaysanna awlaada allah siiyo baariyaal ee ku indhaqowsadaan waxaa idiin rajeynayaa kheyr iyo baraare iyo barwaaqo insha allah janaalka sii sheer gareeya sii like gareeya anigana waxaan rajeynayaa insha allah inaan soo badiyo fiidiyoyaasha oo caajiskaas ka qaado waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu